السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله رمضان مبارك. waxay ahayd gabar saalixad waxay u naxariisan jirtay waalidiinteedii aad bay u jecleed waxay ka xumaatay waalidiinteedii oo shil baabuur galeen runtii way soo qaaday waxay keentay istaalka ayay keentay markay istaalka keentay runtii aad bay u naxariisan jirtay waxay dhigan jirtay jaamacadda kulliyadda dhakhtarnimada ayay baranaysay markii waalidiinteedii ay ku dhaceen shil baabuur ayay jaamacadii ka tagtay waxay bilowday inay shaqo ay ka bilowday isbitaalka waalidiinteeda ay jiifaan run ahaantii gabadhan waxay u baarifali jirtay waalidiinteedii maalimaha ka mid wuxuu yeeray mudiirkii isbitaalka wuxuu ku dhahay waxaa jooga bukaan qolkaas wuxuuna u baahan yahay daawooyin in la siiyo ee ka cutag oo daawooyin soo sii gabadhii markay wiilka u tagtay runtii waxay la kulantay wiil saalix wiil ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanay wiil masaakiin wiil hadalladu ku hadlay hadalla qiimo ku taagan runtii wiilkii way la yaabtay daawooyin ayay siisay wuxuu qaadanayaa amarkeeda ayuu qaadanayaa runtii asagana wiil wuxuu ahaa maasha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanayo gabadhii uu jeclaaday markuu jeclaaday ayuu usoo bandhigay inuu guursado gabadhii iyadana waxay ka heshay wiilka dabeecadiisa iyo akhlaaqdiisa ayay ka heshay wayna ka ogolaatay inuu guursado ilaahay fadligiisii gabadhii uu guursaday markuu guursaday wuxuu keensaday gurigiisii waxaa kula nool walaashiis iyo walaalkiis ka weyn runtii wiilkii aad bay u necbanaayeen muddo 9 bilood ka bacdi gabadhii ilaahay fadligiisii waxay qaaday uur ayay qaaday markay uur ay qaaday runtii aad bay u faraxday ilmaha caloosheeda ku jira inay hooyo u noqon doonto balse ilmihii intuu dhalanin waxaa loo soo sheegay ninkeedii inuu geeriyooday runtii markay maqashay geerida ninkeedii waxay uga shakisay walaalihiis inay dileen ilaahay fadligiisii waxay dhashay wiil ayaa dhashay iyadoo wiilkeeda korsanayso oo caanuujinayso nasiib xumo haddana wiilkeedii ayaa geeriyooday markuu geeriyooday gabadhii aad bay u murugootay balse ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay tala saaratay waxay dhistay mashaahid ayay dhistay mashaahidkani waxay u bixisay magaca ninkeedii haddana waxay dhistay madrasa ayay dhistay madrasadii waxay u bixisay wiilkay dhashay magaciisa runtii gabadhii waxay ku laabatay jaamacadeeda ayay ku laabatay waxayna sii wadatay kulliyadii dhakhtarnimada ee wadatay runtii way sabartay